kulanti wacan daawadayaasha ku xiran janalkan Shabeellaha Tube ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa dhacdo xanuun badan nin xaaskiisa caruurta u dhashay gacantiisa ku dilay. Subhanallah, dhacdadan foosha xun argagaxana leh ayaa ka dhacday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. marxuumadda la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Bahjo Calas, waxaa ifka dhaafsiiyay si arxan dara ahna u dilay mindina ugu jarjaray ninkii iyada qabay oo ay caruurta u dhashay. waxa uu dilay shalay waliba iyada oo maalin ciid ah ay tahay, dadka muslimka ahna ay farxad iyo damaashaad ay ku jiraan ayuu ifka dhaafsiiyay. dad aqoon u leh Bahjo ayaa sheegay inay ahayd qof wanaagsan waliba iska faraxsan intii aysan dhiman. Bahjo 17 bishii May ee bishan aan hadda ku guda jirno ayay barteeda Facebook soo gelisay qoraal ay ku cabirayso jacaylka ay u qabto ninkeeda. qoraalkaas ay soo dhigtay ayaa u qornaa sida tan: suldaankeyga indhahayga nuurkiisa allow yaanan ku weynin, aamiin. qoraalkaas ayay soo gelisay barteeda Facebook intii aysan dhiman Bahjo. qofkii ay sidaas u ammaanaysay, una jecleed, una aaminsaneed, una duceynaysay ayaa si arxan dara ah u dilay, isagoo weliba mindi ku dilay. sababta uu u dilayna ilaa hadda ma caddo, walow dadka qaar ay inoo sheegeen inuu u dilay arrimo maseer la xiriira. isku day aan rabnay inaan kula hadalno familka Bahja ayaa inoo suurta gelin. ma ahan markii ugu horeysay oo la maqlo dhacdo nuucan oo kala ah, ha noqoto nin naagtiisa dilay ama gabar ninkeeda dishay. hadda Dalmar wuxuu gacanta ugu jiraa ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya, waxaana baaritaan lagu hayaa kiiskiisa iyo sababta ku kaliftay in uu xaaskiisa dilay iyo in Dalmar uu caafimaad qabo iyo in kale. haddaba daawade, walaashii Bahjo maanta waxa ay naga mudan tahay in aan u duceyno. allow u naxariiso Bahjo Calas, aamiin aamiin aamiin.